بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا waa idin wada salaamay meel walba aad joogtaan. intii caafimaadka qabta caafimaadka Allah u siyaadiyo, intii xanuunsan Ilaahay ha caafiyo. asxaabay waxaan wadaa maanteeto barnaamijkan aad aragtaan oo ah true story oo ah wax dhab ah oo dhacay dadkii markaas walaal muxsin ah oo runtii qisadan waxaa la ila wadaagay xilli horta aad u fog oo hore aadna uma foga, laakiin xilli hore ayaa la ila wadaagay. waa wax sanad ka yar, laakiin qisooyin badan oo ah runtii kuwa aniga aan goobjoog u ahay, kuwa aan arkay, qoraallo aan arkay, maqal aan maqlay, waxyaabo aad kuwa aniga si toosa la ila wadaagay ayaa jiraan oo aad yacni oo ah wada qisooyin qaarkood aad u xanuun badan yihiin oo wada true story ah. waan soo dayn doonaa insha allahu biidni lillahi alkariim. waqtiga markuu ii saamaxo ayaan soo dayn doonaa barnaamijyadaas. hadda iima masaamaxayo inaan live ku sameeyo ama yacni aan kasoo magaco, laakiin waqtiga ay ii saamaxayso ayaan sameynayaa. laakiin hadda waxaan bilaabi doonaa insha allahu inaan barnaamijyada aan tartiib aan usoo sameeyo ama aan usoo daayo qaar bulshada ka dhex walbana wax bulshada ka dhex dhacaan. asxaabay barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay qiso true story ah oo walaal muxsin ah oo aan qeyr ku tabayo uu ila wadaagay, mar horeetana uu ii sheegay. qisadan waxa ay ka dhacday horta maxaan la yaabay, maxaanse ka yaabay. waxaan la yaabanahay yacni waxyaabo badan oo bulshadeena ka dhex dhacaan, sida dadkeenu ay ayagu iskugu xoog weyn yihiin ama sida ay dadka kaleeto marka ay arkaan ay ugu dabacsan yihiin ama ay ugu habacsan yihiin. qisadan waxay ka dhacday dalka Kenya, sida walaalka muxsinka uu la wadaagay. waxay ka qaasatan magaalada Nairobi ayay ka dhacday. qisadana si hoose ayaa waxa oo maxay ahaydey ila wadaagay walaalkii isagu markaa u ahay qisada meesha ka dhacday goobjooga ama ii soo wariyeyba. mar horeeta ayuu ii sheegay, laakiin xilligeeda ayaan hadda ka hadlayaa oo aan fursadu ii siisay anoo isdhahayay maalinba maalin ka sameey. walaalayaal, waxaa jirtay qoys Soomaaliyeed oo ka koobnay aabe, hooyo iyo caruurtooda. caruurtuna markaas aysan ahayn caruur, waxaa u joogay reerka wiilal waaweyn ayaa u joogay. aabuhu wuu joogaa, hooyaduna way joogtaa. runtii waa wax aad u xanuun badan. marka reerka waxaa u shaqeynayay yacni dabcan Soomaalideena dhan waxay wada haystaan dad maxay tahay waxaa loo yaqaano maxay tahay jaariyada ama gabadha adeegtada ah ama booyaasada guriga, hadba sida aad u taqaano iyo magacaad u taqaano. badanaa wax walba waxaan ku aaminaa ama farta aan ka saarnaa ama aan u dayacnaa waa dadkeena shaqaalaha ah, oo shaqaalaha ayaan wax walba farta ka saarnaa. way yar tahay inta iska ilaalisa dadka shaqaalaha ah ee xaafadaha ka shaqeeya ama qofkan asalkiisa iyo waxa uu yahay qofka weydiiya ama waxa uu ka maxay ahayd meeshuu seexdo, yacni informationada badan inta weydiisay aad ayay noogu yar tahay. waxaa noogu badan inta aan daneynin dadkani waxa ay yihiin iyo waxa ay ka kooban yihiin. calaa xaal gabadhii ayay maxay ahayd iyada ayaa ka sheekaysay qisada, waxa ayna la wadaagtay maxay ahayd qisada sida lagu ogaaday iyo sida ay ku dhacday. waxaa ka sheekayn doona oo sheekada laga soo xigtay ama ka imaatay waa gabadhii. waxay tiri reerka waxa waaye tiri waa reer khayla ama jaadka cuna. wiilal waaweyn oo 2 ah oo reerku dhaleen ayaa guriga jooga. aabuhuna waa nin weyn, hooyaduna waa islaan weyn ayay gabadhu tiri. maxay ahayd marka walaalka muxsinka ah gabadha ayuu kasoo xigtay iyo meesha ay joogtay oo markaa gabadhu ay xilliga ay munaasibka ku ahayd iyo meesha ay joogtay. calaa ay xaal gabadha wiilkanuna reerka ma yaqaano, gabadhana ma yaqaano, laakiin meel ayay maxay ahayd qisadu ka dhacday oo
laga soo xigtay. Gabadhii waxay tiri habeenada ka mid ah islaanta reerka iskale fiidkii ayay iska seexataa, ama waa islaan weyn oo way iska seexataa. Dadka aabbaha iyo wiilashuna iyo fareenyaashiisa iyo dadka u yimaadana way isla wada qayilaan. Gabadhu waa gabar mayda oo yacni la degan reerka, oo reerka la nool, oo qol ayay leedahay, oo waxa waaye waa living waaye, waa gabar shaqaale ah oo reerka la degan. Gabadhii waxay tiri habeenada ka mid ah aniga oo jooga qolkayga ayaa waxaa iigu soo galay aabbihii reerka. Walaal si fiican u dhageyso oo si fiican u dhuux. Waxaani been ma aha, mana aha wax la iska soo mala awaalay, ama ma aha, waa sheeko qisaba dhab ah oo dhacday, aadna u xanuun badan. Gabadhii waxay tiri habeenada ka mid ah waxaa ii soo galay bay tiri aabbihii reerka. Gabadhu dabcan siday sheegtay muddo aad u dheer ayay reerka la joogtay, laakiin shaydaankii waxa uu qaaday odaygii ayuu qaaday, oo maxay ahayd gabadhii ayuu qolkeeda ugu galay. Waxay tiri waxaan damcay inaan odaga iska caabiyo ama aan iska celiyo, manaan qaylin, manaan waxba maanan dhihin, laakiin intii tabartayda waan isku dayay bay tiri, laakiin wuu iga xoog badiyey oo odaygii gabadhii ayuu halkaa xaajadiisii iyo dantiisii ugaga dhammaystay. Muddo waxay tiri markuu odaygii saa igu waday, oo waxay tiri uuba markaan iga dhigtay xaaskiisii ama haweenaydiisii uu isagu iga dhigtay, oo maxay ahayd naagta uu la qabo ama guriga kula nool oo iga dhigtay. Wax walbana uu igu maxay tahay wax aanan sheegin oo aan shib eri bay tiri. Waxaa ii daba maray bay tiri oo sheekadii ogaaday bay tiri wiilashii markay ogaadeen, wiilashiina sidoo kaleeto ayay gabadhii ku sameeyeen. Waa sida iyadoo ay sheegtay oo ay xigatay. Gabadhu marka maadaama meesha wax ka qaldan yihiin iyo meesha qisadu ka imaan doonto, oo qisadu ay ka imaan doonto ama dhibka uu ka imaan doono, waxa weeye gabadhani way dacwoon kartay, wax walba way sameyn kartay. Yacni waa la ii xoogay way dhihi kartay, wadankeeday joogtaa waa la ii faraxumeeyey way dhihi kartaa, wax walbana way sheegan kartay, laakiin maysan sheeganin, waxbana maysan dhihinin, sababta oo ay tahay sir baa u qarsooneed gabadha, aad iyo aad u weyn. Sirta u qarsooneedna waxa ay ahayd gabadhu waxa ay la nooleed, ama sheekada ay ku sheegtay dhakhtarkeeda u sheegtay. Ninkan walaalkan muxsinkana meesha uu ka ogaaday waa dhakhtarka. Waxa ay la nooleed cudurka HIV-ga ayay la nooleyd. Marka waa sababta keentay in aysan dacwoonin, in aysan maxay ahayd haddii ay tahay qof la xoogay ama la qasbay, ama markaa gabarna maysan ahayn, islaan weyn ayay ahayd, oo islaan yacni meel dhexaada sida la sheegay ayay ahayd. Marka waxa ay gabadhu waxay leedahay wiilashii dabcan waxay tiri anigu ma ogi, laakiin dad kaleeto ayay haleeyeen. Aniga odaygiina islaantiisii ayuu dhibkii aniga uu iga qaaday ayuu u geeyey. Gabadhan cidi may ogeyn, odaguna muu ogeyn, wiilashuna may ogeyn, hooyaduna may ogeyn inay cudurkan la nooshahay ama cudurkan ay qabto. Qof bini aadana may ogeyn. Secret wuxuu ahay ayada ay haysato iyo faamilkeeda iyo dhakhtarka agoonida ah ay leedahay ka dhaxeeya, oo ay kaniiniyaasheeda ay u qaadato xanuunka, oo cudurka HIV-ga ay u qaadato ayay la wadaagi jirtay. Storygana waxa ay la wadaagtay waa dhakhtarkeedii. Meesha walaalka muxsinka uu ka ogaadayna waa halkaa, oo ayuu ka soo ogaaday oo uu joogay. Calaa ayaa xaal anigana meeshuu iiga tabiyey waa halkaa. Gabadhani Soomaalida marka gabadhani waxa ay halakaysay, horta dhibka waxaa keenay waa odaga reerka, kabacdina waxaa foolxumada keenay waxyaabaha muqaadaraadka waxay keenayaan ama dhibka keenaan xishood la-aanta iyo xayaata la-aanta aabe wiilashiisii. Waa wax gaza aad aan ula xanuunsaday, in qofba mar uu ii dhuunto ayay tiri, oo midba midka markay is ogaadeen midba midka kaleeto uu u dhuunto. Waxaa keenaya Soomaalida waxaa nahay dad aad u dayacan. Waa dadkani xataa haddaan gabadhani gogol lala gelin ama waxba lala gelinin, dhiig yacni waxay samayn kartaa, cuntada ayay dhiiggeeda kuugu dari kartaa, caruurtaaday dhiiggeeda ugu dari kartaa. Yacni waxyaabaha
badan oo adiga kugu keeni kara cudurkan ayay ku qaadsiin kartaa. Qofka shaqaalaha ku ah waa inaad ka qaadaa aydiyadiisa, dokumentigiisa waa inaad ka qaadaa, meesha uu ka yimid waa inaad walaal macaane aad iska baartaa. walaashay gacalisoy, caruurtaada imise haween ayaa barqadii iska jiifa, aroortii iska jiifa, ninkeeda ay u dirtaa gabadha guriga joogta shaqaalaha ama Soomaali ha ahaato ama ajaanib ha ahaatee inay quraacda ay u sameyso ninkeeda, oo gabadhaasi aysanba ka warqabinin oo barkinta u dheer tahay. Imise dumara ayaa caruurtooda u dhiiba gabadha shaqaalaha si ay caruurtaas yaryarka ay u xanaaneyso, waxa ay dooneysana caruurta waxa ay doonayaan ay u sameysaan. Walaal adiguna barkintaad dheeraysataa, waad hurudaa, waad iska seexataa adiga oo ku taminaya inay kuu joogto gabar shaqaale ah oo adigu aadan waxba qabanaynin oo waxba aadan u baahnayn inaad qabato. Cilaanku cidiyaha kuu saaran yahay, mid markuu kaa dego naqshadan wiigaan marsatay maahan wiiga kaleeto aad doonaysid inaad naqshad kaleeto aad soo saarato yarale ahada. yacni waxa weeye reeraheena guryaheena waa inaan ka warqabnaa, guryaheena waa inaan ka warqabnaa, caruurteena waa inaan ka warqabnaa. walaala inta aad saygaaga iyo caruurtaada qof kale kaaga soka marayo waa inaad ayaga daryeeshaa. koow waa inaad ka bilowdaa waalidkaa hadduu kula nool yahay, waalidkaaga iyo saygaaga iyo caruurtaada waa inaad ka bilowdaa ood ogaataa nadaafadooda iyo waxa ay cunayaan iyo waxa ay cabayaan waa inaad ka koontarooshaa, waa inaad haysataa. Mida kaleeto gabar shaqaale ah guriga hadday kula joogto, gabadhan shaqaalaha ah ama Soomaali ha ahaato ama ajnabi ha ahaato oo ay dantu kugu kalifto inay kula seexato, waa inaad ka warqabtaa waxa ay tahay caafimaadkeeda, waa inaad ogtahay. Shaqaalaha aad guryaha keensanaysaan caafimaadkooda iska baara, shaqaalaha aad guryaha keensanaysaan waxa ay yihiin iska baara. Widan waxaa lagu ogaan karaa 3 bilood ama 2 bilba marba. Qofku ha kaa xanaaqo, laakiin waa daryeelkaaga, waa naftaada, gurigaaga iyo cuntadaada ayaad u dhiibatay oo wax walba ayaad ku aaminatay. Adinkii haddaadnan is aruurinin, haddaadnan dantiina ka fakarin, cid idinkaga fakaraysa ma jirto. Halkaa waxaa ka baxay reer ba-ow yaa kule khasaaradii dhacday iyo dhibkii dhacay yaa keenay. Waxa keenay inaga ayaa isku keenay oo ahayd qofta guriga noo joogta in aanan ka warqabin waxa ay tahay iyo waxa ay noo soo hoysay iyo waxa ay noo magaciiseen. Qisooyin aad u badan oo mid walbaba ay leedahay magaciisigiisa ayaan insha Allahu soo gudbin doonaa next videoga. waa waxa aan anigu goobjooga u ahay iyo waxa aan arkay iyo waxa magaciisabay. waxaan idin leeyahay salaamullaahi calee. walaal na dhiirigeli maxay ahaatay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijyo badan ayaan soo wadnaa hadduu Ilaahay yiraahdo. page-keena Warda TV maxay ahaatay YouTube-kayga Xalimo Diiriye maxay ahaatay official channel. please subscribe isaar, like isaar. waa mahadsantahay. jazaakumullahu khayr wa ahsanallahu ilayka.